مسؤول خضر محمد قلبيد oo ah mas'uul ka socda xisbiga muxaafidka ee kulmiye maalmihii la soo dhaafayna ku sugnaa deegaanka Ceegaag ayaa maanta agab isboorti oo kala duwan gaarsiiyay ciyaartoyda degmadaasi Ceegaag ugu horeyntii waxaa halkaasi hadallada iskaga daba maray maayarka degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil gudoomiyaha isboortiska degmada Ceegaag Cabdiqaadir Xuseen Axmed iyagoona u mahad celiyay siyaasi Khadar sheegeen in ay taageersan yihiin xisbiga kulmiye joogay muddo dhowr maalmood siyaasi daayar oo u dhashay degmada Ceegaag lana shiray bulshada kala duwan ee degmada maanta oo gabagabana wuxuu la shirayaa isboortiga iyo ururka haweenka qalabkan isboortiga ah ee uu ku wareejinayo gudoomiyaha isboortiga ciyaaraha Cabdiqaadir Xuseen Axmed. Assalaamu calaykum warahmatullahi أنا كهذا اللي أفكر دنيرة أما أفكر سبورت قاعد دقمة علاج وأنا ما أنت لقيت في بدوني شاهد خارج البيدي دريس صدق كحول دريس كود هذه بديه يا جرمانتي كان ما أنت في بدون منه وأنا في بدوني وأنا ما أتسيء هاي خارج البيدي وأنا دنت دقيقة أسود شيء هذا يرنو أسود شيء إن شاء الله ونخرج شغلنا حسب كلمية وحسب هذا ترى ذلك هيا وأنا كمرة بعد لو أميني كرو دمانتين حسب ما أنت فوت كلا قاضي وحين أقبلنا حسب كلمية عدكنا وكلمية لينك دنت ديجان كشغية أما دنيا أنا وعدك كمان بنصيرنا وسوسامة سو كلمية مني كلمية نوع علينا إن شاء الله. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay mas'uul Khadar Maxamed Galbeedi waxaana uu yiri dhammaantiin wad maasantiin dhalinyarta odayaasha maamulka degmada Ceegaag ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Ceegaag maayarku qalabka halkan wuxuu ka kooban yahay saddex kooxood buu ka kooban yahay oo kubadahoogii iyo driiskoogiiba dhiirigelin aan ku sameynayno inaan dhalinyartu ay horumar sameeyaan ay si fiican dadaalkooga u sameeyaan taasna waxa sababay in xisbiga kulmiye aan ka socono mas'uuliyiin xisbiga kulmiye aan ka socono aan deegaanka doonayno inay la qaybsadaan waxooga dhinaca kalena waxa uu mas'uulku booqday goobaha waxbarashada iyo caafimaadka oo hoos u dhac baani ka muuqday isagoona sheegay inuu cabashadaasi gaarsiin doono dowladda Somaliland muwaadin waxaan ku sheegnaa xaruntan Somaliland wax uga yimaada oo agab ma jira waxa ka soo gaara team mobilo iyagu de shaqaalahoodii iyo duwadoodii waxooda wato oo gaari saaran markay yimaadaan maalin ka shaqeeya ama laba maalmood ka shaqeeya ka bacdan gaarigooda dib ugu noqdo صح ma la oran karo mas'uul wasaaradda caafimaadka Soomaaliland way ka gaabisay doorkii caafimaadka degmada boqolkiiba boqol way ka gaabisay waayo maraan haddayna health boss oo aqoonsanayn dee health boss waa meesha ugu hooseysa xarun caafimaad oo la qaabilo oo la aqoonsado waxaa ka shaqeeya qof umulisa iyo nin dhakhtar ah Somaliland ugama diiwaan gashan Walibaan Axmed Ciise Liibaan Qaran wararka telefishinka caalamiga ee SAB TV degmada Ceegaag